asxaabteena sharafta leh soo dhawaada dabcan waxaan ka hadli doonaa barnaamij ku saabsan ciyaaraha dabcan horyaalka Talyaaniga ee falaqayn doona isbuucan dabcan horyaalka Talyaaniga waxaad moodaa in lagu kala baxay oo Napoli oo 3 kulan ay u harsan tahay ayba hore u qaadatay horyaalkii dabcan waxay 15 dhibac ka sareysaa kooxda ku xigta ee Lazio dabcan ayadu sanadkan xarbisay balse dhibaatada ugu badan ayaa waxay ka jirtaa horyaalka top 4 waxa loo yaqaan oo sanadkan aad la isku dhagan yahay oo kooxaha Roma, Inter Milan, AC Milan, Juventus iyo Lazio inta ay qudraynayaan iyo xitaa Evan Atlanta dabcan horyaalka Talyaaniga sanadkan xamaasad gooni ayuu lahaa maadaama horyaalka Talyaaniga aan ognahay inuu gabi ahaanba ciyaaraha Euro ka soo muuqday sanadkan oo muddo 10 sano ka badan dabcan ay markii ugu 20 sano aan dhahna markii ugu horeysay 3 koox oo Talyaaniga ay quarter final ka soo gaareen semi final kana dabcan ay hadda 2 koox oo Talyaani ah joogto waxaana qasaba in koox Talyaani ay final ka tageyso halka koox ama Spanish ama Ingiriis midkood noqon doontana ayaguna la saadaalinayo inkastoo Talyaanigu hal koox inay tageysa finalka loo Inter Milan ama AC Milan ay tageysa dabcan labada kooxba sanadkan wacdara ay muujiyeen horyaalka Talyaaniguna wacdara ayaa ka sii socday maadaama kooxahoodii ay Europe wacdara ka dhigeen dabcan sidoo kale koobabka Confederation Cup iyo UEFA Europa League intuba wacdara ay ka sii dhigeen kooxaha Talyaaniga marka dabcan waxaa la yaab leh dabcan oo isbuucan natiijooyinka la filayay kamid ah kulan aad u adag oo Roma iyo dhaxmaray AC Milan oo la ismari waayay oo lagu kala baxay barajaha hal oo kadib goolal yimid 93 daqiiqo kadib ama 90kii kadib ay goolasho yimideen horyaalka Talyaaniga dabcan 33 sano kadib Napoli ayaa u dabaaldegayso waa jiil dhan dabcan saan filayn taageerayaasha Napoli hadda diiba jiraan xilligaas ma dhalan qaarkood ama dadka kubadda cagta Soomaalida xiiseeyo qaarkood xilligaas ma dhalan Napoli waa ay dabaaldegday waxa dhiman waa 6 kulan dabcan sida la filayo horyaalka Talyaaniga Lazio waxay ku qasbanaan doontaa inay kaalinta labaad xajisato halka kooxaha kale 3 iyo 4 ay u banaantaa waa Inter iyo Milan iyo Juventus iyo Roma iyo Atlanta intuba marka dabcan wuxuu soo gaaray horyaalka Talyaaniga aad ayaan falanqeynaynaa isbuucan maadaama xilli ciyaareedka uu soo xirmayo Mayna la joogo dabcan May maanta dama sida horyaalada ay iska soo xirmayo marka baahda Soomaaliya positive waxaan u sheegaynaa in isbuucan ciyaaraha aan aad u falanqeyn doono waxyaabihii soo kordha mar walbana aan ka hadli doono qaasatan horyaalka Talyaaniga aan aad u saadaali doono aad iyo aad u mahadsantiin